dad badan waxaan u malaynayaa waxay arki jireen anigoo boosaaso iyo qardho iyo garoowe iyo maraayo maanta maxaa galmudug mahad ka soo galay ayaa la isleeyahay barasho wanaagsan mahad cabdulla cawad wuxuu ka dhashay beel la yidhaahdo surre ayuu xildhibaan u yahay beesha surrena halkaan hobyo ah waxa weeye reere la sheegay oo laba ahaa saddex bay ku yihiin magaaladan 50 kilomitir deegaan u jira oo ay xarun u tahay degmada Bacadweyne 100 kilomitir oo cudurla deganayd ayay beesha surre degan yihiin deegaanka laga bilaabo buurshe ilaa iyo Dusmaalay ilaa iyo Xaraale ilaa iyo Lajiide ilaa iyo waxa weeye deegaankaas oo dhan oo 68 kilomitir ah ayaan xildhibaan u ah oo galmudug ka tirsan laakiin se Puntland deegaan baa iga jiro aan islahaa wax ka soo saar deegaan ilaa iyo Nugaal ilaa iyo Bari ilaa iyo Sanaag ah ayaa beeshan wax ka degan tahay oo xuquuq ka maqnayd laakiin se meeshaas beel baa wax ka dhisatay 1998 beeshii bayna ku egta laakiin se beeshaan uu ka soo jeedo galmudugnimadeedu mid cid la weydiisanaya ma ahane waa mid jirta oo aan su'aal ku jirin 10% baan leeyahay baarlamaanka galmudug gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanka aniga weeyaan taliyaal ciidan baan ku leeyahay waxa weeye generaallaan ku leeyahay ma aha wax su'aal ku jira halkan ma aanan raadinayn sababtoo ah anaa iska leh tan laakiin se kuwa xuquuqdooda ka maqantaan u raadinayo Bari iyo Nugaal iyo jira ayadina waa la soo waayay marka madaxweyne Cabdulle Gaas saaxiibkaygu ahaa laakiin se xildhibaanada dooranayay beesheedu kuma jirin madaxweyne Siciid Dani waa saaxiibkay weeyaa asaguna laakiin se beelihii doorteen uu kuma jirin laakiin se madaxweynaha halkaan fadhiya 8 xildhibaan oo beesheeda soo doortay waxbaan ku leeyahay waxa weeye qoysku asagu ka dhashay sanad baa la yiraahdaa 7 cod bay ku lahayn anigu 8 baan ku leeyahay marka anaa ka qaban marka Soomaaliya waa kala go'day oo qayb bay u kala go'day laakiin anigu reerkaan ka dhashay suuqa la yiraahdaa awal buu kala go'naa anigu 7 xildhibaan baa waxaan ku leeyahay maamulka leeyahay Hirshabelle oo 2 wasiir oo buuxa iyo 2 wasiir dawlad iyo 2 wasiir ku-xigeen baa ku leeyahay sababtoo ah waxa weeye deefu iyo kabxanley iyo deegaanka ugu fiican ugu beeraha badan leh ayay beesheedu degan yaa ii diiday mahad sanaad iyo aaway nimankii cayd waxa weeye Hirshabelle wax ku leeyahay waa hiiraan ma la dhihi karaa galmudug waxba kuma laha anigu Hirshabelle waa leeyahay galmudugna waa leeyahay Puntland xuquuqda ku maqan oo waa laga heli doonaa marka qof cod la gaaro hatta xoolaha yar beelihii 98 dhistay ha ku ekaatay laakiin qof cod marka la gaaro macid baa baraysa waxa weeye arrinkaasi waa cidii ay su'aal uga jirtay Abdul Bukhari waa la ogaayay gudoomiyaha kale xukun ka yimid gudoomiyaha kale meeshuu wax ku leeyahay hal la ogaado cidii su'aal uga jirtay xoolaha khilaafa ayaa kursiga wala xararo xamar wala aadayo Cabdikariim mahad salaadiya waaga ka cararay marka hadda madaxweynuhu hadduu soo ceshanayo kursigiisa asaga u taalla walaalayaal intaasi kaftan iyo isbarashaha naga ahaato